waad ku mahadsantahay daawashada videoga. Magacaygu waa Yuusuf Sakiin. Ku soo dhawow selfie goal. Jacaylku mar walba waa codsasho ma ahan amar. Lamaanaha doonaya inay ku noolaadaan guri farxad iyo reenreen iyo barwaaqo iyo jacayl iyo naxariis waxaa qasab ah inay ogaadaan in jacaylku uu ku koro, ku weynaado, ku kaco, ku dhismo mar walba codsasho uuna ku burburo, ku dhinto amar. Ninka marka uu gacalisadiisa ama xaaskiisa uu amar ku siiyo wuxuu isku bedelayaa aabaheeda, ayadana waxay noqonaysaa gabadhiisa yar. waa aabaha midka cunugiisa ama cunugtiisa yar amar ku siiya si ay wax ugu samayso, waayo cunugaasi weli ma kala garanayo nolosha, weli ma kala fahmin nolosha. saa daraaddeeda wuxuu wax ku qaataa marka amar la siiyo oo keliya. balse lamaanaha xaalkooda wuu ka duwan yahay midkaas. lamaanaha waa laba qof oo jacayl isku guursaday oo wax ku heshiiyeen, waxayna ku heshiiyeen inay dhisaan nolol jacayl iyo farxad ah. haddaba si ay noloshaasi uga dhabeeyaan, lamaano waxay u baahan yihiin inay mar walba isku isticmaalaan codsasho, ay ka fogeeyaan amar. jacaylka amarka wuu ku dhintaa, wuxuuna ku koraa, ku weynaadaa codsashada. ka waran haddii uu ninka uu xaaskiisa ku yidhaahdo, gacaliso, ma xasuusataa quracdii macaanka badneyd ee beerka aad noo karin jirtay? ma suurtoobaysaa gacaliso quracdaasi oo kale inaad noo samaysid? hadda ninkan wuxuu ka codsaday gacalisadiisa inay wax u samayso, amar kuma siinin. ayaduna waxay usoo samaynaysaa quracdan ayada oo faraxsan, ayadoo xamaasad u haysa inay soo samayso. balse ka war hadduu ku yidhaahdo, adiga hey kac iisoo samee qurac baan rabaa, qurac iisoo samee, ka kaca meesha. hadda wuxuu isticmaalayaa xoog ma isticmaalayo jacayl. qofka marka uu codsado, marka uu isticmaalo codsi, wuxuu isticmaalayaa jacayl. sidoo kale wuxuu muujinayaa qiimaha uu qofkaasi uu ku leeyahay agtiisa. balse marka uu amar bixinayo wuxuu adeegsanayaa xoog. wuxuu leeyahay waa soo samaynaysaa, raalli ku noqo mise ha ku noqonin, waxaasi aan doonayo waa ina ay soo samaysid. balse ogow, jacaylku mar walba waa doorasho. markaaad qofka wax ka codsatid waxaad siinaysaa doorasho uu wax ku doorto. lamaanahaaga wuxuu xaq u leeyahay inuu diido ama inuu aqbalo. balse ogow, mar walba markaad isticmaashid codsiga, ogow mar walba in qofka kale uusan kaa diideynin, waayo usluubtaada aad u adeegsatid ee codsiga ah ayaaba ka dhigaysa qofka inuu ku sameeyo wax aad doonaysid. haddaba soo kama ficna inaad qofka waxa aad doonaysid kugu sameeyo isaga oo faraxsan, isaga oo ku jecel, bedelkii uu ku samayn lahaa waxa aad doonaysid, balse isaga oo ku caraysan, isaga oo ku faraxsaneen waxa uu sameynayo. dooro midka koowaad, waa isaga ayaa midka ugu fiican. si lamaanahaaga doorasho mar walba. midda kale, marka aad lamaanahaaga wax ka codsatid, midaasi waxaad ku kala ogaanaysaa jacaylka uu ku qabo lamaanahaas ama qofka kale. marka aad ku tiraahdid wax ka codsatid, adiga ma dhihin waxaas iisoo sameen, balse waxaad tiri, waxaan jeclaan lahaa quracdaasi aadka u macaaneyd, uu kacay, uu kuu sasay. midaas waxay ku dareensiinaysaa in qofkani uu doonayo adiga farxaddaada, inuu ku jecel yahay, inuu wax kuu sameeyo. halka markaad ama siisid aan qofka doorasho kala haysanin, balse uu ku khasban yahay inuu kuu sameeyo, waayo adigaba amar ayaad siisay. tusaale kale, ka waran haddii ay gabadha ku tiraahdo ninkeeda, kaale igu caawi jikada, haddii kala caawo waxaad seexanaysaa adigoo gaajeysan. ka waran haddii ay qaab kale u isticmaasho oo codsasho ah bedelkii amar ku siin lahayd. ka waran haddii tiraahdo, gacaliya ma suurtoobaysaa inaad igu caawisid
jikada hawsh ayaa igu badan, adiga oo mahadsan. Ma jeceshahay inaad igu caawiso jikada? Hawlaha ayaa igu badan si aan u boobsiiyo, si aan kugu soo boobsiiyo cashadaada. mar walba waxaynu doonayno waxaan ku heli karnaa qaab fiican, usluub wanaagsan oo codsasho ah. ogowna lamaanahaaga mar walba u isticmaal qaab codsasho ah. waxa aad doonaysid uga codso qaab codsasho ah. iska ilaali inaad amar bixisid, waayo markaad amar bixinaysid ma dareensiinaysid qofkaasi inuu agtaada ka yahay qof muhiim ah, in qofkaasi uu ka leeyahay agtaada qiimo, balse waxaad dareensiinaysaa in qofkaasi uusan waxba agtaada ka ahayn. keliya wuxuu ku noqonayaa qof aad amar siisid oo xoog aad ku haysatid, waxaad doonaysidna aad xoog ku heshid. jacaylku mar walba wuxuu ku dhismaa, wuxuu ku fiican yahay mar walba codsasho, kuma dhismo amar. waad mahadsantahay.